galmudug hadda arinta kaliya ee la isugu bootay ama waalidka gabdhuhu ay ku cabsi galiyeen waxay noqotaba hooyo wallahi sun baan cabaya ama aab wallahi sun baan cabaya hadda waa xaqiiqo dhacdo waay. السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada YouTube channel-kayga Mustafa Al-Cadaala. Maanta waxaan rabaa inaan halkan ku falanqeeyo ama aan uga hadlo arrin maalmihii dambe ku soo cusboonaatay ama ka soo cusboonaatay deegaanada Galmudug gaar ahaan degmada Guriceel iyo degmada Dhuusamareeb. Waa arrin laga xumaado, waa arrin aad iyo aad u naxdin badan. Arrintaas oo ah in gabdho Soomaaliyeed ay sun u cabaan jacayl dartiis amaba nacayb dartiis. Qaarna nacayb bay u cabeen, qaarna jacayl bay u cabeen. Waa arrin la yaab leh. reer Galmudug oo lagu xaman jiray inay iyagu jacaylka dhankiisa ka adag yihiin ay yihiin dad qalbi adag ayaa hadda bilaabay 6 bilood ugu dambeysay waxa laga diiwaan galiyay in ka badan 6 kees oo ah in dad isugu jira rag iyo dumarba ay sun u cabeen jacayl dartiis ama dad markaas oo wax uun kala dhaxayaan xiriir ah. nacaybna way qaar baa u cabay, jacaylna qaar baa u cabay. haatadeedii isbuucaad ugu dambeeyay waxa la diiwaan galiyay in ka badan 2 kiis. gabar xalay bay sun ku cabtay degmada Guriceel. waxay hadda taalaa isbitaalka Fayker degmada Guriceel. waxaa la tacaalaya xaaladeeda dhaqaatiirta iyagoo sheegay in xaaladeedu ay aad u liidato, inkastoo laga yaabo saacadaha soo socda in Ilaahay uu caafiyo oo xaaladeedu ay ka soo hagaagto. waanu duceynaynaa, waxaan leenahay Ilaahay caafimaad taamasi ii sheeg kuwa dambe inaan waxaan leenahay idinkana ka waantooba arrimaha noocaas ah. sidoo kale 2 habeen ka hor waxa dhacday degmada Dhuusamareeb in gabar lagu magacaabo Farduus Qaayac in yani maaragta iyadana ay sun ku cabtay, waliba sun dooli waaye, sunta ay dad Soomaaliyeed u taqaano sunta dooliga ay cabtay. gabadhaas oo xiriir kala dhexeeyay wiil kamid ah shaqaalaha madaxtooyada Galmudug. wiilkaas oo ay ku heshiiyeen arrimo guur iyo waxyaabo noocaas ah maadaama ay muddo badan jacayl soo wada jilayeen. wiilka ayaa uga baxay arrinta guurka, saas darteed waxa qasbay noqotay gabadha inay sun cabto. ayadana xaaladeeda halis bay gashay, inkastoo hadda ay ka soo reynaysa xaaladeeda oo iyadu tan dhaanto. tan waxa lagu magacaabaa Farduus Qaayac, taasna waxa lagu magacaabaa Farxiyo Maxamed oo Cali. nin lagu magacaabo Farxiyo waxay yani maaragtay nacbaysatay ama ay nacday Maxamed iyagu oo codsatay in laga furo. ninkaas oo isagana markii uu furiinka ka dalbatay sheegay in aabaheed uu u celiyo hantida markii hore uu ka dhiibay ama qarashka uu ka bixiyay in aabaheed u celiyo si uu yani maaragtay ay furiinkeeda ugu suurta galo. arrintii isqa qabsi iyo muran iyo gacan ka hadal ka dhashay awgeed odayga xataa gabadha dhalay la xiray. gabadha yani maaragtay waxay qasbi noqotay inay sun cabto iyadoo markaas doonaysa in uu laga furo ninkan. Galmudug hadda arinta kaliya ee la isugu bootay ama waalidka gabdhuhu ay ku cabsi galiyeen waxay noqotaba hooyo wallahi sun baan cabaya ama aab wallahi sun baan cabaya hadda waa xaqiiqo dhacdo waay. 6 bilood in 6 kiis in ka badan laga diiwaan galiyo deegaanada Galmudug. wax xasuustaan ayaan dhaxdaas wiil baa sidoo kale gabar u jeclaa darteed inta loo diiday markuu doontay sun cab isagana xaaladiisa waa la badbaadiyay. maalmo ka hor wiil baa aroos ku dhiganayay deegaan u dhow Dhuusamareeb oo asagana gabar loo diiday gabooye ahaa oo aroos kala kacsan xataa loo dhigay oo naagta isagoo qaba loo diiday rafaad badan ka bacdi u suurta gashay inuu guursado. alxaasil waxyaabahaas oo isbiirsado dhan waxa u sabab ah waalidkii oo diidaya gabadhii markii yani bixinteeda yani maaragtay la gaaro iyo ii sheeg gabdhiyo ayagana aan jacaylka iyo arrimaha aan lamaanaha aan ku baraarugsanayn oo si qaldan ba fikir qaldan ka aaminsan. qofkan waa bini aadam, waa isku dhici kartiin, wax kasta dhici kara, ma ahan inaad sun u cabto. waa qof adigoo kale ah, haddii wax walba ay dhacaan qasbiin ma ahan in sun la cabo. marka diinta islaamka ma qabto, xeerka Soomaaliga ma qabo. waa wax noloshaada xataa aad ku naar geli karto ilaa adiga qof muslim ah tahay. waa qalad inaad naftaada goyso. marka mid aan ku dhaliilay reer Galmudug waxay tahay war arrintan maxaad wacyigelin uga sameey weyseen, maxaad bulshada ugu baraarujo weyseen waxyaabaha noocan inay qaladaad weyn oo diinta laga gal yihiin, maxaad yani maaragtay isugu guuri weyseen labada isjecel, labada isdagaashan maxaad u heshiisiin weyseen. war arrimaha noocan ah lagu baxo waxa laga qabto. fiidiyowga si share gareeya dadka reer Galmudug hala gaarsiiyo si ay arrintan wax uga qabtaan. kuwa yani maaragtay hadda ka hor aan wali cabin ay ugu baraarugaan in arrinta noocaas ay arrin halis badan tahay, naftooda aysan halis gelinin.
qaar baa sun ari cabaya qaar baa sunta dooliga cabaya arrintaas waa arrin aad u xun marka videogan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waxaan ka codsanayaa inaad YouTube channelkayga subscribe saartaan videogan sii share gareysaan asxaabadan gaarsiisaan waad ku mahadsantihiin daawashadiina salaamullah